aniga waxaan ku qancayaan ku dhiqar inta isoo hor istaagto inay dhahdo raali ahaw waan ku qaldanahay boqolkiiba 2 milyan inaan dukaankaaga rabsho ku sameeyo waan ku qaldanahay adoo asxaab aan nahay oo dad is yaqaan aan nahay inaan dukaankaaga intaan soo galo dad soo wato horor ah maxay ahayd oo wada jaahiliin ah inaan maxay ahayd dukaankaaga dib lagu sameeyo gabadha adiga ku joogtana aan la baxo inta haday dhahdaan ku qancaa ay ahayn waa taqaanta meesha isla tageen naagtan waa naagta taqaan waa iqro kawde idna maraali gareys ayada la raali gareeya qoftan ayada la raali gareeya xagee aadeyna geedka gaartid meel ka soo guro geed alaal geedka gaartid meel ka soo guro anaga meesha waa mashquulsanaba ilbaabka warnaba ka heenabo dad kalaam laga reebayaa naagi gabadhan wadatiba kuwa miya waa kuna marka horar amal maxamuda wurus waxamuda oo la hilibaa gudaha ku jiray kaalay la baxa war hatta waa looga jeedaa ma oo marka gabdhaha qaar baxa dhahay baxa hadda waay bilaabane hadda waay hadda agaan raadinaya Zoya waxay tiri erayadaas iyadii iqra dhaxmaray diyaarna uma halka inaan ka hadlo because wax booso iiga banaan ma jiro waxaan ku dhahay waxaas xataa ana xalinaayo ka bax bari mi iimaan kartaa 3 markay tahay like 9 sac galabnimo waxay dhahday diyaar waa iimaana iqran waxay tiri diyaar waa ku iimaana waxaan ku dhahay markii dhageysta diyaar uma yihi dagaal dhageystayaa diyaar uma yihi dagaal diyaar uma yihi buuq diyaar uma yihi naaga inaan la isoo wato diyaar uma yihi mindiye iyo waxa loo joogay in la imaado dad la heshiisiinaya aatihin aniga gurigeyga waa ku heshiisiin karay waan dhihi karay gurigeyga iigu imaado labada waa yaqaanaan waan dhihi karay laakiin waxa u diidanaa in hadhowta wax intuu dhaco la dhihin maxay ahayd gurigeyga ku ballamaysa heblona waa lagu dilay intaasaan ka cararaay waxaan dhahay public dukaankeyga ku yaala BBS Mall iigu imaada mid walbana kaligeed ha ii imaato qofna yeela soconin because heshiisa u socotaan ma aha dagaal ina isdagaashaan ma rabi haddaba haddaa isdagaalaysaan mid idhi karta maanta beenaa sheegaysaa ma jirto haddaba haddaa isdagaalaysaan ha ii imaanina heshiis haddaadan rabin ha ii imaanina maya waa wada hadleynaa diyaaraan nahay mid walba binteeda kale inaa gar la siiyo diyaaraan u nahay okay ii imaada 9 sac markeed ani meel kala ka balansanaa meeshii aaday iqraa imaatay dukaankeyga baxdir samiixan maqadaha okay dhaqay iyadana dukaanay dhisanaysa BBS Mall dukaan ka qaadatay dhisanaysa okay tiri Zoya ayaa waxay markaan ka imaaday galabta casarka dukaankeyga ku tukaday waxaan dhahay 5 ku sii socotay ku aawe waxay tiri cunugeygan meel geeyay oo shopping wax soo sameysanoya waxay kadib waa kula jooga hayaan ku dhahay waa soo dhiga videoga intaanteen ilbaabka maxaa ka galay u qaraacaya aniga iqra marka hore u si sheegay waxaan ku dhahay iqra aniga dagaal ma rabi buuq ma rabo dukaankeyga la iskugu imaanaya qofna uma heelinayo labadiina inaan nii dhadhaxeeyo oo dhexdiina galo maadaama labadiinaba asxaabnii la ahay aan rabay laakiin waxa iqra marka u banaaneed walaalay aniga garna ma igasho garna ma iga baxdo naagtaasna inaa iska celiyaan rabaa mana rabi dhaxdan inaa soo gashid iskaga baxishiisna ma rabo iqra iyadoo intaa ay dhihi karto way ii aamuste waxayna ii degtay qorshe ah waa hadda sida ii cad qorshe ah gabadha in meesheeda lagu dilo haddayna ahaan lahayn wiilashaan MCA-ga ee iga soo horjeedo iyo kuwa security-ga haddaana la isoo gurman lahayn ilbaabkan dhala waay gudaha inta la iskugu soo rido waxay watay mindiyo pepper spray everything oo tear gas oo wax walba oo indhaha wax ku sameyn karo iyo wax walba mindiyaha ay wataan xataa waxa la wax loo dhigi kara ma aha ma fahamteen waxay rabeen gabadhaas ay aniga aan dhahay maganteeda ku jirtaa iyo maxay ahaday wax walba oo hub oo qof bini aadan dib loogu geysan karo iqrana uma soo bixin heshiis waxay u soo baxday inay gabadha iska celiso ama ay disho
mii fahamtaan inay gabadhaa disho anigana iyada qaladka ay samaynayso ma ujeedo anigana inaan ku jiro marka aniga xalaan la soo casheeyey haddana markii inta la igu dhex arko oo gabadhi dukaankayga lagu dilo micnaheeda maxay tahay iska daa Zooya xataa hadday aamini weysay tiraahdo maya sameexa waxaa ma sameyn Soomaali Maxamed iyo familkayga ka bilaaban lahayd wax ii aamini lahaa ilaahay abuurta male waxaa la yidhi ilaa gabadha adaa shir qooshe sababteeta ani horta uma arki waxaas geesinimo uma arki wah intii lasoo dhaw in meel iskugu imaado haddana meherad dukaan ah dukaankayga iqra intay u soo xijaabatay u soo dhaqaaqday inay burburiso anna igu ceebaysa gabadhaana meesha intay kala baxdo ay disho gabadhi meesha lagu dilo geesinimo ani waxaa u aqaanaa qofka intii la wacdo in la dhoo kaamira diyaaru ma ihi waxba diyaaru ma ihi ii soo bax naagtu naag iska kee celi geesinimada saxda ah okay aniga qof kale ma haysto Zooya uma hiilinooyi garro uma hiilinooyi abgaal uma hiilinaayi maxay ahayd habar gidir uma hiilinaayi qof ani aan gardaraysanay ma lahan qof aan ku maagay ma lahan iqro waa la xiray managementiga xireen waan wacay waxaan ku dhahay gabdhaha ii sii daafiir inta wanaaga raadinaa cabsi iguma jirto just wanaag qof ilaahay abuurto oo adduunka ku neefsado oo aan ka cabsanay ilaahay abuurto male ma fahamtay wanaaga aan raadinaa managementiga inta xireen waxaan ku dhahay gabdhaha wax ma sameeyay ii soo sidaa kadibna waxaan dhahay anna inaan ku ballansadaan rabaa inaan ii qabsoomtidna waan rabaa arrinka labadiinana iga dhaxeeyo iyo gabdhahan xamar isku soo laayay ee inta u imaaday inay maskaxda ku dagsadaan buuqa ka baxaan maxay ahayd idinkii u bilaabaysaan inaan aniga damiyaan rabaa magaaladana magaalo weyn waaye maxay ahayd Nairobi wala Mombasa Kenya yote waa magaalo weyn waxaan rabaa ayaan ku dhahay qof walba inuu si xorriyad ugu noolaan karo qabiil walbaana ku nool wax hebel ah leh inta la waxa ma jirto meeshaan ma fahamtay marka waxaan ku dhahay meeshaan si xor ina ugu wada noolataan dad ilma adeeraadii gabdhahana ay heshiisaan gabdhiya xagga isku soo dagaal ina inta dab idinka u sii shidaan waa laga qurux badan yahay gabdhaha ina isku keentaan oo idinka gabdhiyo isku wadaan hadaa isku wadi karina magaalada nabad lagu kala joogo laakiin mid ku dhaga hadlays eena jirin ani jeclaystaan ku marka aniga kibir badana kan ama aha just wanaagaan raadinaya Zooya waxay tiri erayadaas iyadii iqra dhaxmaray diyaarna uma yahay halka inaan ka hadlo because wax booso iiga banaan ma jiro waxaan ku dhahay waxaas xataa ana xalinaayo ka bax bari ma iimaan kartaa aniga waxaan ku qanacayaan ku dhahay iqra inta soo hor istaagto inay dhahdo raali ahaw waan ku qaldanahay 2 milyan inaan dukaankaaga rabsho ku sameeyo waan ku qaldanahay adoo asxaab aan nahay oo dad is yaqaan aan nahay inaan dukaankaaga intaan soo galo dad soo wato horor ah maxay ahayd oo wada jaahiliin ah inaan maxay ahayd dukaankaaga dib lagu sameeyo gabadha adiga ku joogtana aan la baxo inta haday dhahdaan ku qanacaa ay ahayn waa taqaanta meesha isla tageen geed bageeda ka weyn ilmana aabahooda ka weyn meeshaan ada iskeenta badaan ada isku soo dhex turtay saas ku soo maqiiqaysi meesha waa taagan hada horta naagtan waa naagta taqaan oo iqro kawre idna maraali gareys ayada la raali gareeya qoftan ayada la raali gareeya xagee aadayna geedka gaartid mira ka soo guro geed alaal geedka gaartid mira ka soo guro midda kale ku sheego waxa tiri adaa kala hadlaysa waxa tiri naagtan dagaal nagama dhexin samiixo dagaalka adaa badan ku soo dhex gashay farta doontid qor midda labaad shirqoolkan haduuba shirqool jiray adaa diyaarisay inta tiri mee iqra kaali iyo imow askar meesha soo dhawatay awli waxa dhoos iqra waa la xir anaas kale xogaa jaahilna taamo maleysa meeshan waa mishiin wax wala ma soo qaadan karo mid kale yaatiin markaan wax idin soo qaadana ilaa heerkaas ma ii gaarsiin kartiin gacantiis mujida aydan ka hadla waa sababta ayadoo hadalka la wado u istaagay aniga miyay dadka afka ka hadlo dadka waxa hore ka xanaaqo oo qofkii uu la sii murmur ma jecleen okay hada dulqaad iyo dabiicad leh dadka la isku ma keen